Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, welcome to Ilmi Online Academy. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa story. Storygaas wuxuu ku saabsan yahay a lion, libaax, and iyo a mouse, jiir. A lion, libaax, and iyo a mouse, jiir. Sheeko markii la bilaabayo sida caadiga ah waxaan dhahnaa beri baa waxaa jiri jiray mise beri hore waxaa jiray. Englishkan waa isla meeshii, waxaa laga bilaabaa beri hore waxaa jiri jiray mise beri baa waxaa jiray. Once upon a time, once upon a time, beri baa waxaa jiri jiray. There lived, waxaa noolaan jiray a lion, libaax, and iyo a mouse, jiir. One day, maalin maalimaha ka mid ah, the lion, libaaxi, was sleeping, wuu hurdayay. The mouse, jiirkii, started, wuxuu bilaabay playing, inuu ku ciyaaro on it, libaaxi dushiisa. Yacni jiirkii wuxuu bilaabay inuu ku ciyaaro libaaxi dushiisa. Libaaxna wuu hurdayay. The lion, libaaxi, woke up, wuu soo kacay. The lion, libaaxi, woke up, wuu soo kacay. He caught up, wuu qabtay the mouse, jiirkii, and was going to kill, wuxuuna u socday inuu dilo. Kill waa dilid. The mouse, jiirkii, requested, wuxuu dalbaday mise wuxuu codsaday. Requested, wuxuu codsaday mise wuxuu dalbaday. For forgiveness, saamax mise cafis. The mouse, jiirkii, requested, wuxuu dalbaday for forgiveness, cafis mise saamax. The lion, libaaxi, let, wuu fasaxay him, jiirkii, go, inuu baxo. Yacni meelahaad markaan isku fiirino waxay noqonaysaa the lion let him go. The lion, libaaxi, let him go, xorriyadiisa ayuu siiyay. Laakiin erey markaan u fasirno, the lion, libaaxi, let, wuu u ogolaaday him, asaga, go, inuu baxo. The lion, libaaxi, caught in a net, waxaa lagu qabtay shabaq. After some days, maalmo kadib, the lion, libaaxi, caught in a net, waxaa lagu qabtay shabaq. The mouse, jiirkii, cut the net, wuxuu jarjaray shabaqii with his teeth, asagoo adeegsanayo ilkihiisa. The lion, libaaxi, was free, xorriyadiisa ayuu helay mise shabaqii wuu ka baxay, waayo dooligii mise jiirkii ayaa jarjaray shabaqa. The lion, libaaxi, was free, xorriyadiisa ayuu helay. He thanked, wuxuu u mahadceliyay the mouse, jiirkii. Okay, hal mar ayaan ku celin doonaa. Once upon a time, beri hore, there lived, waxaa noolaan jiray a lion, libaax, and a mouse, jiir. One day, maalin maalimaha ka mid ah, the lion, libaaxi, was sleeping, wuu hurdayay. The mouse, jiirkii, started, wuxuu bilaabay playing, inuu ku ciyaaro on it, dusha libaaxi. The lion, libaaxi, woke up, wuu soo kacay. He caught up, wuu qabtay the mouse, jiirkii, and was going to kill, wuxuuna u socday inuu dilo. Was going to kill, wuxuuna u socday inuu dilo. The mouse, jiirkii, requested, wuxuu codsaday mise wuxuu dalbaday for forgiveness, saamax mise cafis. The lion, libaaxi, let, wuu u ogolaaday him, asaga, go, inuu baxo mise the lion let him go. The lion, libaaxi, let him go, xorriyadiisa ayuu siiyay. After some days, maalmo kadib, the lion, libaaxi, caught in a net, waxaa lagu qabtay shabaq. The mouse, jiirkii, cut the net, wuxuu jarjaray shabaqii with his teeth, asagoo adeegsanayo ilkihiisa. The lion, libaaxi,
was free xorriyadiis ayuu helay shabaqa wuu ka baxsaday. He thanked wuxuu u mahadceliyey the mouse jiirkii. Okay, casharka maanta halkan ayuu nooga egyahay. Su'aalo ayaan idin wadin doonaa. Su'aasha koowaad, soo qor ereyada aad halkan ku baratay. Ereyadaas iyo micnahooda soo qor, soo sawir, kadibna soo dir. Su'aasha labaad, xikmadda sheekadan inoo sheeg. Sheekadan xikmad ayaa ku jirta. Xikmadda sheekadan ku jirta inoo sheeg. Insha Allah labada su'aalood ka soo shaqeeya kadibna soo gudbiya. Waxaan kaloo idin raacinayaa in Khamiista iyo Jimcaha aan qaadan doono imtixaan. Insha Allahu Tacaala imtixaanka soo diyaariyay oo casharadii ku laabta bilow ilaa iyo dhammaad. Insha Allah su'aalaha waxaan ka keeni doonaa casharadii aan soo baranay bilow ilaa iyo dhammaad. Marka qof walbo ay soo diyaariyo insha Allahu Tacaala. Waxaan idin rajaynayaa guul. Bye bye. See you in the next lesson. Goodbye.